iyadoo maanta ay ku beegan tahay 15 Abriil oo ah maalinta dhirbeerista ee dalkan Jamhuuriyadda Somaliland ayaa wasaaradda deegaanka gobolka Saraar waxay sameysay dhirbeeris aad u tiro badan waxaana sidoo kale wasaaradda deegaanka gobolka Saraar ay qaybisay ilaa iyo 1,000 kuwaas oo loo qaybiyay shacabka gobolka Saraar si ay ugu beeraan goobaha sharciyada ah munaasabad kooban oo loo qabtay maalinta dhirbeerista oo ka dhacday afaafka hore ee wasaaradda deegaanka gobolka Saraar waxa ka soo qayb galay maamulka iyo shaqaalaha wasaaradda deegaanka gobolka Saraar iyo waliba marti sharaf kale oo aad u tiro badan ugu horeyn baa halkaasi waxa ka hadlay isuduwaha wasaaradda deegaanka gobolka Saraar Farxaan Salebaan Gaas waxaana uu sheegay in dhirtan maanta ay qaybinayaan uga dan leeyihiin inay kor u qaadaan bilicda magaalada maanta waa xuska maalinta dhirbeerista Somaliland 15 Abriil 2020 dhirtu waa dhaxalka ubadkeena ee aan dhowrano dhirta gobolka Saraar ee wasaaradda deegaanku soo dirtay waa 1500 geed dhirta tuulooyinka oo dhan waanu gaarsiinay 3 degmada wadaamago oog dhanaano aynaba degmooyin fara badan dhirtii way ka gooday wasaaradda deegaankuna in ay deegaanka dhirtu ka gooday dhirta u soo dirto bulshada gobolka Saraar in ay dhirta subax kasta lagu kormeerayo dhirta loo beeray oo wasaaradda deegaanku ku kormeerayso way bulshada Saraar waxa kale oo aan maanta idin sheegaya qofkii geedka dhidinka ah lagu qabto isagoo goynaya waa xarig iyo ganaax kulul baa laga qaadaya qofka lagu qabto isagoo oo gurigiisa ku ooday ama barkad ku ootay isagana talaabo sharci ah laga qaadaya madaxda wasaaradda deegaanka wasiirku ugu horeeyo wasiir Shukri iyo agaasimaha guud oo markasta shaqada nagu garab taagan iyagana waan salaamay sidoo kale halkaasi waxa ka hadlay maayirka degmada Og Cabdinaasir Afrikaani barasaab ku xigeenkii hore gobolka Saraar Ibrahim Jaamac Maxamed xildhibaan Abubakar Shida Cali xildhibaan Cismaan Cabdi Qodax Yaasiin Cali Axmed oo madaxa faya dhowr dowladda hoose degmada Caynaba iyo xubno kale in dhamaantoodba soo dhaweeyeen dhirbeeristan maanta laga bilaabay magaalada Caynaba iyagoo isduwaha wasaaradda deegaanka gobolka Saraar Farxaan Salebaan Gaasna ku amaanay dadaalka ballaaran ee ugu jiro kor u qaadista iyo tayeynta shaqada wasaaradda deegaanka gobolka Saraar waxaan ku faraxsanahay inaan kala soo qabqalo xafladda maalinta dhiraynta qaranka Jamhuuriyadda Somaliland loo asteeyay 15 Abriil isuduwa Farxaan waxaan ku tilmaami karaa inuu yahay modelka gobolka isuduwayaashiisa oo waxa weeyaan nin Ilaahay markii wax badan gobolka u qabtay bayskiisu ka soo bilaabaa subax walba uu soo jarmaada isagoo teekimaya dhirtii uu beeray waxa weeyaan Ilaahay markii iyo inay waxa weeyaan sidii uu u beeray ay u soconayaan cali horta marka hore dhirtan suuca baa loo qaybiyay degmooyinka ilaa dhalaa lagu sheeyso Caynaba Waridaad iyo Og iyo dhamaanba tuulooyinka ku hareeraysan dhirtan way gaadhay 1500 oo geed baa ka yimid wasaaradda deegaanka wasaaraddan aad bay u shaqeysaa gobolka iyaga ka shaqeysaa maanta wasaaraddu u shaqeysay shaqaaluhu way aad iyo aad buu shaqeeyaan siduwiisu laakiin wasiir waxaan ka codsanaynaa iyo agaasimaha guud iyo wasiirka waxaan ka codsanaynaa in shaqaalahan degdeg loo kordhiyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galno xafladan oo ah mid qiimo badan dhirtu waa nolosha waa waxa halbeelaha nolosha weeye mana aha wax ciyaara wasaaradda deegaankuna waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa intii ay jirtay dardarta ay gelisay maxay haytay in la dhireeyo dhulka dhammaan dhirta waa la gaarsiiyay degmooyinka aad iyo aad baan wasiirka iyo dhiijiga iyo isuduwahaba aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa bismillaahir rahmaanir rahiim saaka waxaan halkan ugu hambaleynaynaa wasaaradda deegaanka gobolka Saraar xafladan ay ku qabatay xafiiskeeda aad baan ugu faraxsanahay shaqada ay fiican ay wado wasaaradda deegaanku inay halka ka sii wado ku sii kordhiso maanta waxa weeye 15 Abriil waxa weeye maalintii dhiraynta adduunka sida runtii halkan waxaan joognaa xafiiskii wasaaradda deegaanka ee gobolka Saraar sida runtii waxaan u mahad celinaynaa isuduwaha wasaaradda deegaanka gobolka Saraar sida uu ilaalinayo deegaanka iyo xaaladda uu shaqadiisu ay tahay iyo sida uu dhiraynta uu dardargelinayo jaamac boodacade warbaahinta qaranka Somaliland Caynaba.